Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibada qiimaha badan oo ku soo dhawaada janaalka bandhig. Dagaalkii sokeeye ee Rwanda, dagaal sokeeye oo lagu hoobtay oo lagu halaagsamay kaas oo lagu waayay 1 milyan oo ruux 100 maalmood gudahooda. Laakiin 20 sano gudahooda Rwanda waxa ay samaysay wax aan laga malaysanayn. Rwanda waxa ay ka gudubtay mugdigii colaadda waxayna maanta ka mid tahay dhaqaalaha Afrika ugu degdega koridda badan. Rwanda waxay dhacdaa bariga iyo bartamaha Afrika waana dhul yar oo ay degi jireen laba qabiil oo lagu kala magacaabo Hutu iyo Tutsi. Ka hor isticmaalkii qowmiyadahan waa ay wada noolaayeen waxaana u talin jiray boqor lagu magacaabo Mwami. Labadan qabiil waxa ay wadaagaan dhaqanka, luqadda, diinta iyo waxyaabo badan sida awgeed laguma kala saari karin ilaa iyo shaqadooda mooyee. Tutsiga waxay caan ku ahaayeen xoolaha gaar ahaan lo'da, halka Hutuga looga dambeeyay beerashada dalagga. Gumaystiga ayaa cagta soo dhigay gudaha Rwanda qarnigii 18aad waxaana u soo hormaray gumaystaha Jarmalka kaasoo xukunkiisu u muuqday mid ku dhisan sinaan. Laakiin markii uu dhammaaday dagaalkii koowaad ee dunida ayaa waxaa yimid gumaystaha Belgiumka. Markii uu Belgiumka yimid Rwanda waxa uu bilaabay inuu sameeyo kala saarid ku dhisan cunsuriyad isagoo u kala sameeyay kaarar aqoonsi oo tilmaamaya mid kasta qabiilkiisa. Marna wuxuu u isticmaalay Tutsiga xakamaynta iyo korjoogidda Hutuga markii ay ka shaqaynayaan beeraha. Laakiin qowmiyadda Hutuga ayaa bilaabay inay ka hor yimaadaan gumaystaha Belgiumka iyo qowmiyadda Tutsiga. Laakiin Belgiumkii ayaa siyaasaddiisa bedelay oo u rogay dhanka kale isagoo qowmiyadda Hutuga ka dhigtay saaxiib dhow. Waxaana halkaa ka bilaabmay colaad iyo nacayb u muuqda argoosi iyadoo majalladaha lagu daabacayay ereyga kinematika oo loogu yeerayay dadka Tutsiga taasoo macnaheedu uu yahay in Tutsiga uusan ahayn asal ahaan dad ka soo jeeda Rwanda. Gabagabadii kontameeyadii waxaa bilowday kacdoon qowmiyadeed. Tutsiga ayaa naftooda iyo xoolahooda la banaystay, guryahoodana waa la gubay. Waxayna ku kala farxadeen wadamada deriska sida Uganda, Tanzania, Burundi iyo Congo. Ma aysan istaagin colaadii oo waa ay sii laba kaclaysay kadib markii uu xilku Afgambi kula wareegay Juvenal Habyarimana sanadii 1973. Dhanka kale waxaa Uganda waqtigaas ka socday tababar ciidan iyo isku diyaarin dagaal oo ay sameynayeen qowmiyadda Tutsiga iyadoo ay aasaaseen jabhad lagu magacaabo Jabhadda Wadaniyiinta Rwanda taasoo ugu dambeyn gudaha Rwanda ku duushay sanadii 1991. Inta ay hujuumka waday jabhaddu waxaa la dilay hogaamiyihii jabhadda Fred Ragima waxaana xilka la wareegay nin lagu magacaabo Paul Kagame waana ninka ilaalin doona Rwanda magaciisuna dunida wada baran doonto. Kagame ayaa meeshiis ka sii waday hujuumka waxayna ku dhawaadeen jabhaddu inay qabsadaan caasimadda. Waxaa xilliga dagaalka barbar socday waan ay waday qaramada midoobay waxaana heshiiskaas loo yaqaanay heshiiskii Osha. Laakiin dadka ku hareeraysan Habyarimana ayaa diiday oo heshiiska ka soo horjeestay waxaana hogaaminayay xaaskiisa. Waxayna aasaaseen idaacad sii horisa colaadda iyo nacaybka waxayna ku tilmaameen Tutsiga inay yihiin dad ka hooseeya bini'aadamka kale. Waxayna Hutuga ku dhiirigelin jireen in aysan la ganacsan oo aanay guursan Tutsiga. Waxayna sidoo kale bilaabeen in ay hubeeyaan Hutuga waxaana wadooyinka buuxiyay maleeshiyaad hubaysan. 6 Abriil sanadii 1994 waxaa la soo riday diyaarad uu saarnaa Juvenal Habyarimana. Intaa kadib waxaa soo shartagay balaayo iyadoo aan la ogeyn cidda sida rasmiga ah u soo riday diyaaradda ayaa waxaa xukunka fuliyay idaacaddii nacaybka fidin jirtay waxayna dhahday Tutsiga waxa ay dileen madaxweynaha hadda waa inaan ku dilnaa meel walbo aan ku aragno. Waxaana bilaabmay xasuuqkii ugu xumaa waxaa la dilay Tutsi kasta oo ishu qabatay. Marna jabhaddii ayaa dagaal ku qaadaysa caasimadda si ay u qabsato. Dilka ma uusan joogsan ilaa ay caasimaddu ku dhacday gacanta jabhadda. Muddo 100 maalmood gudahooda markii ay qabsadeen caasimadda waxa ay ka dhiseen xukuumad cusub. Hogaamiyihii jabhadda Paul Kagame waxa uu noqday ku-xigeenka madaxweynaha. Laakiin markaan Hutu ayay xaaladdu ku xun tahay. Malaayiin ka mid ah Hutu ayaa dalka iskaga cararay waxayna u baxsadeen dhanka Congo. Xukuumaddu waxa ay xirxirtay 120,000 oo qof oo loo malaynayo inay qayb ka ahaayeen rabshadaha iyo colaadda. Laakiin magaalada waxaa ku rugmaday rabshado cusub.
xukuumaddanu xal ayay u weysay, taasoo keentay inuu ugu dambeyn madaxweynaha xilka iska casilo kuna wareejiyo Paul Kagame laftarkiis. intaas kadib waxaa xirmay casrigii dhiigga iyo nacaybka, waxaana furmay casrigii horumarka iyo isu soo dhawaanshaha. Paul Kagame waxa uu lahaa laba hadaf intii uusan la wareegin xilka ka hor, waxayna kala ahaayeen kow inuu mideeyo shacabkiisa la kala geeyey iyo inuu faqriga ka saaro dadkiisa. si uu labadaas hadaf u fuliyo waxa uu sameeyey qodobadan soo socda. kow, sanad kasta waxaa xasuus loo sameeyaa wixii dhacay, isagoo madaxweynaha uu halkaasi imaanayo kuna soo bandhigayo hadafkiisa cusub ee sanadka soo socdo. laba, in fikirka laga dhiso dhalinyarta, waxaana loo sameeyey hab waxbarasheed oo aad u sareeya, kaas oo ka hadlaya waxyaabaha sababay dhibaatada iyo sidii lagu hortagi lahaa inay mar dambe dhacaan. cadaaladda, xukuumadda Kagame waxa ay waxweyn ka qabatay cadaaladda, iyadoo xirxirtay dad aad u tir badan kuwaasoo ku lug lahaa xasuuqyadii dhacay, waxayna u samaysay xabsi weyn oo ku yaala magaalada bannaankeeda. afartaasi qodob waxaa ku soo xirmay dhibaatooyinkii ka jiray gudaha dalka, waxayna xukuumaddu fursad u heshay in ay horumariso dhaqaalaha dalka. Kagame ayaa booqday waddamada horumaray oo dhaqaalahooda uu aad u sareeyo sida Singapore, isagoo ka qaatay fikrad. Rwanda madaxweynaheeda keliya waxba ma uusan qabanin, ee dadka Rwanda ayaa si qalbiyan ah u nacay qabyaaladda kana fogaaday. innaga ka Soomaali ahaanna waxaa nala gudboon inaan cashar ka qaadano waxa ay samaysay Rwanda. intan ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeenii maanta. waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. fadlan inagu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka. haddii uu muuqaalka ku cajabgeliyay like saar, fikirkaadana hoos ku cabir. mahadsanid. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.